بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولالكين زكريا حدقو إذن له كسو دواذا channel كيغا وحانا رجينا يا إيناد كفا إذا ستان معلومات كان إذيسو بندقو وقت وليبا يومالون وليبا أن أقود قال موضوعين وحوكه لا يا محبة الله سبحانه وتعالى محبة الله يا وحنكسو قادنا يا لبقي سو آد أقيم بدن حقيقة قفك دقيستنا هدي أكو عمل فلو وأركايو ثمرة يمره إن شاء الله تعالى. حقيقة جعيلك عيب معها وحا عيب إن الله سبحانه وتعالى درتي سلسكو جعلانين. النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هل صاحب إلا مؤمن موياني عنتذا ذا يصنعن إلا قفتقئها موياني. حديث كرياتو النبي عليه الصلاة والسلام أها 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان محاوكو شيء إن أجران 2 تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. لبا الله درتي سيسكو جعلاتي جعلك الله سبحانه وتعالى درتي سيكو ذا كل من وينكو كالتغين يعني موتك أياك لقي. قصة أوه الرئيسو وحايد أحمر محمد بن قيس يا صاحب كيسة. محمد بن قيس أيا سوزياتي صاحب لها أهانا ولا كيسة في الله. وحوكسو زيارة المساجد كمدا مساجد هذا مغالة داس قورتي وصاحب كيسة سو قاري وحو أركي أما أو هلي أما أو لكل مساحب كيسة أو تكنايو أما سنيسانايو وقتي وسو زيارتي صاحب كيسة وحي أيهد قبل الفجر يعني صلاة فجر كورا أيهد markii uu arkay saaxiibkiisa oo salaad ku jira ama sunnaysanaayo waa uu karaahiyay inuu saaxiibkiisa dhibo ama uu ka qaso salaadii iyo cibaadadii. kadib Muhammad waa uu baxay masaajid dariska ahaa ayuu iska tagay salaad ayuu asana iska qabsaday iyo sunno ilaa inta laga gaaray salaada fajr. salaadii fajr ama salaadiisii u dhameystay fajr waxa uu go'aansaday inuu u tago Muhammad bin Qays si uu soo ziyaarto. kadib waxay ku wada kulmeen jidkii midba midka kale ay isku duubay oo hab uu siiyay ayagoo midba midka kale tan ku dul oonayo oo uu leeyahay iga raali noqo walaal xaqaaga ayaan ka gaabiyay. taas oo cadeen u tahay maxabadoodii iyo jaceylka Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa isku qabeen. qisada labada ayaa waxay dhaxmartay Abu Bakr Siddiq iyo Bilal. mar waliba ay saxaabada arkaan Abu Bakr waxay oran jireen Bilal mar waliba ay saxaabada arkaan Abu Bakr iyo Bilal waxay oran jireen ama ay dhihi jireen Abu Bakr waa sayidkeena waxa uu xoreeyay sayidkeena. Abu Bakr ayaa mar wuxuu u doonay inuu xoreeyo sayidkeena Bilal radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum inuu ka xoreeyo adoonimadii iyo cadaabtii ku jiray. taas oo geysan jiray Umayya bin Khalaf. Umayya bin Khalaf ayaa aad u cadaabi jiray sayidkeena Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah. Abu Bakr ayaa u yimid Umayya bin Khalaf isagoo ka doonay inuu ka gato ama uu ka xoreeyo sayidkeena Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu warḍaah. Umayya ayaa damcay inuu sayidkeena Bilal uu yani liido ama uu bahdilo ama uu xaqiro isagoo ku yiri Abu Bakr hadii aad isin lahayd 1 dirham waan ka gadan lahaa ama waan ku siin lahaa ninkan. Abu Bakr asagoo codkiisa kor u qaaday sayidkeenana Bilal kor u qaaday manziladiisa karaamadiisa ayaa waxa uu yiri wallahi hadaad iga codsan lahayd 100 kun waan ku siin lahaa asaga dartiisa. kadib waxa uu siiyay lacagtii uu ka codsaday kadibna waxa uu soo xumbaartay ama dhabarka uu soo saartay sayidkeena Bilal asagoo ku oranay ama ku leh waxa tahay walaalkayga runta ah walaalkayga xaqa ah. انت كعصب كنالكيغا فضلا هكا إلا وينا سبسكرايب إنا سارتان كنالكيغا لايك تنا أسارتان أدنا شيء قريسان معلومات كان آيات وقيمها بدن ونا فايدة بدن.